Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada videogan. Waxaan ugu talagalay videogan in aan uga hadlo alaabta aad u baahan tahay in aad Amazon iska ilaalisid in aad ku iibisid. Alaabta Amazon aad u baahan tahay in aadan keenin micnaheed waxaa waaye alaab oo mamnuuc ah ayaa jirto. Taasi waa gooni hazardous ayaa la dhahaa. Marka maba gedi karto sida qamrida iyo waxyaalaha kale maba gedi karto, waaba lagu diiday. Hazardous ayaa la dhahaa, macnaa waaba mamnuuc. Alaab waxaa jirto oo aad keeni karto oo laakiin khasaaradeed badan. Marka waxaan ka hadli doonaa alaabta isla markaas aad keeni karto oo khasaaradeed badan. Alaabahaas waxay noqon karaan alaabta aad keeni karto oo khasaaradeed badan aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid. Waxay ka mid tahay alaabta inta badan la cuno sida edible-ka, waxyaalaha fruitka, waxyaalaha sida vitaminada, maxaa kale waxyaalo inta badan la cuno sida maxaa la dhihi jiray qudaarta. Amazon qayb kastay leedahay, vitamin ay keeni kartaa, qudaaraad keeni kartaa, balse qeybahaas waa qeybaha inta badan ugu dhib badan. Inta badan waxay u baahan yihiin in ay soo maraan shuruudo oo sida xagga caafimaad ahaan waxay u baahan yihiin haddii vitamin ay yihiin in macnaha sharciyada stateka ama gobolka ama wadankaas in ay soo buuxiyaan sharciyada, in macnaha daawooyinkaas ay sun ahayn, waxyaalo badan shuruudaheeda badan. Marka wax kastoo la xiriiro edible, wax la cuno iyo wax fresh ah, fruit ah, waa dhib badan yihiin. khasaaradeed iyo soo celinteed iyo suugeed maa la dhihi jiray miya dacweynteeda iska badan. Marka waa la iska ilaaliyaa. Alaabta kale labaad aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid ayaa waxay tahay alaabta afka leh ama mudacda ah. Macnaha waxaa loola jeedaa alaabta sida sakiinta, alaabta sida mindida, alaabaha sida maxaa la dhihi jiray dhalooyinka ama wax jabi karo, dad durduri karo markii alaabta la geynayo, markii alaabta la furaayo, markii alaabta macnaa meel la saarayo waxay u badan tahay in ay macnaa dhibkeed iyo khasaaradeed iyo macnaa ay badnaan doonto. Marka inta badan waxay u baahan yihiin qarash dheeraad ah oo packaging ah. Xagga packagingka qarashka kartoon oo midi aan gelaynin, kontoorkii kale aan duleel samaynin, waxyaalahaas qarashkeeda badanay. Marka waxaad u baahan tahay wax si cheap ah, raqiis aad ka helaysid. Alaabtaas ayaad u baahan tahay inaad iska ilaalisid. Sidaas oo kale alaab kala baxaysa ama kala furmaysa ama kala dhumaysa. Micnaha waxaa loola jeedaa haddii aad soo gadanaysid alaab laisku xirxiraayo sida maxaa la dhihi jiray boolka iyo maxaa la dhihi jiray iyo qalab haddii oo xirxiritaan u baahan yahay, waxaa dhici karto alaab aad sii iibisay meel inay ku duleelsanto, alaabta ay dhacdo uu ku dhaw qofka alaab qaldan wax ka maqanaa liisoo dira lagu soo celiyo product return packaging. waxyaalahaas qarashkaas adaa lagaa jari doonaa. waa inaad iska ilaalisaa. alaab kasta kala furfurmayso, kala baxayso, kala dhacayso, iska ilaali. Alaabaha kale aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid inaad Amazon aad keento waxaa ka mid ah sida liquidka, waxyaalaha dareeraha ah sida daawooyinka, biyaha la cabo, qamrida la cabo iyo wax kastaba isla markaas oo la cuni karo, waxyaalo aan la cunaynin inaad iska ilaalisid. ayadna sidaas oo kale aad iyo aad u baahan tahay. waa jabi karaan, waa daadan karaan, wax ewiraa liisoo diraa lu dhihi karo, khasaaray kugu tahay. midda kale waa muhiim inaad iska ilaalisaa dharka. sidiisaba dharka waa inaad iska ilaalisaa. haddii aad private labeling aad sameynaysid, brand aad keenaysid, waayo brand yaraad tahay, ninku aqoonsan yahay malahan. inta badanna waxay u badan tahay in size-ka uu igu yaraaday, waa igu weynaaday, haligu soo celiyo. qarashaadka soo celinta iyo maxaa la dhihi jiray oo alaabta lagu soo celiyo khasaaro badan ayay ku keeni kartaa. Marka waxaad u baahan tahay inaad iska ilaalisid. midda kale waxaa waaye waa inaad iska ilaalisaa alaabta culeyska iyo alaabta weyn xad dhaafka ah sida packagingka. waa inaad sidaas oo kale iska ilaalisaa. waa shippingka, soo celinta, handlingkaas lacag badana lagaga qaadan doonaa. storageka hataa lacagaa lagaga qaadan doonaa. sidoo kale waxaad u baahan tahay alaabta aad keenayso inay ahaato alaabta la ogol yahay, alaaba la mamnuucay inaysan ahanin. intaan waxay ku mid yihiin alaaba aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid. haddii mar aad macnaa intaan iska ilaalisid, inta kale waxaa waaye waa ku iibsamaya. alaabta aan hadda soo tiriyay intoodaba waa keeni kartaa, waa ku iibsami karaa, balse khasaaradooda badan. marka iska ilaali nooca alaabta aad aan kuu sheegay.